madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiintii uu hogaaminayay ayaa booqday iskaashatada macdanta been ee soo saarta dahabka oo ku tala deegaanka biya qaboobe ee degmada Ayshica ee gobolka City. iskaashatadani oo ah mid cusub oo hadda la aasaasay ayaa la filayaa inay wax weyn ku soo kordhiso dhanka shaqo abuurka iyo ilaha dhaqaale ee deegaanka. muddo sanadii badan hawsheeda wadnay natiijooyin fiican oo ka soo gaadhnay dhulka oo dhan ilaa Cabdulqaadir Xariir ilaa halkaan joogno waan baadhnay. wasaaradda macdanta waxayna soo siisay rag la taliyana waan keenay way baadheen successful buu lagu guuleystay isla markaa imika hawlgalkeegii ma wadnaa qalabka madaxiisa uu yaala waxaan ka sugaynaa in Dubai ka imanaysa toddobaadka dambe waxaan rajaynaynaa isagoo burburan inuu soo baxo dawladuna gaar ahaan dawlad deegaankuna uu kaga qayb qaato wax soo saarka dalka ee lacagta lagu helayo. gobolka City ayaa qani ku ah kheyraadka kala duwan ee macdanta wax soo saarka beeraha iyo guud ahaan marina muhiim u ah guud ahaan ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka.